بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد داوديال kusoo dhawaada barnaamijka maan godlin meel walba dunida ka daawanaysaan barnaamijka maan godlin waa barnaamijkan ku soo qaadano murtidaas soo godlisa maankayaga aana ka helna dhiirigelin ina dhaqaajisa oo na gaarsiisa meelo dhaadheer ee noogu jirto dheef adduun iyo mid aakhir labadaba maanta mowduuca aan ka hadlayno ciwaankiisu waxa weeyaan qaybtii labaad cayili caqligaada caatana ka celi qaybtii labaad cayili caqligaada caatana ka celi waxaan ciwaan hoose ooga dhignay hagidda hardanka fakarka caqliga iyo ficilka qalbiga walaalayaal qaybtii hore waxaan ooga soo hadalnay qiimaha uu leeyahay caqliga qaabka uu shaqeeyo iyo inta qaybood uu u qaybsamo waxaan soo qeexnay oo aan soo sheegnay caqliga la'aantiis inuu qofka bini'aadamka ah uusan qiimo lahayn oo uu magac kale qaadanayo oo qofkii la siiyey ciwaan kale oo ah majnuun waxaan leenahay caqliga qofka hadduu waayo qayb noloshiisa macnihii weyn ka mid ah ayuu waayey qofkaasna waa qof laga qaaday qalinka xag alle iyo xag bini aadan siduu noo sheegayba rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam uu yidhi saddex waxaa laga qaaday qalinka rufica alqalam can halaath saddex waa laga qaaday qalinka saddexdaa waxaa ka mid ahaa qofka majnuunka ah xataa yufiiq qofka majnuunka ah ilaa uu ka soo miyirsado wax loo qabanayo oo loo qoraayo ma laha sidoo kale qofka hurda ilaa uu ka soo baraarugayo wax loo qabanayo ma laha qofka saqiirka ah ilaa uu ka qaangaaro wax loo qabanayo ma laha marka waxaan dhahnay waa xubin muhiima ay muhiim tahay inaan ogaano qaabkay u shaqayso inta qaybood ay tahay waxaan dhahnay wuxuu caqliga uu la shaqeeyaa shanta xasaasi oo ugu horeyso aragga iyo maqalka wuxuuna wax ku fahmaa asabab walghaaya in loo sheego reasoninka iyo ulajeedada waxaan ku miaalina oo dhahnaa caqliga hadduu raad arko wuu garan karaa raadkaas waxa uu yahay sidoo kale hadduu sharqan maqlo isagana wuu fahmaya inuu sharqan uu maqlay haddii wax la tusana oo maalan hadda qiiq meel ka baxaya hadduu arkana wuu garanayaa caqligu inuu meesha uu dab ka jiro wuxuuna la shaqeeyaa uu cilmigiisa ku helaa labadaas xubnood aan sheegnay waxaan dhahnay sida aragtidan ay iftiinka la'aanteed waxba u arkirin buuna caqligu cilmi la'aanteed waxba u arkirin marka qayb muhiima ayuu ahaa oo aan ka soo hadalnay marka walaalayaal haddii aan horay usoo sheegay aan dib wax yar aan maaragtay aan inoo xasuusiyey waxaan gelaynaa qaybteennii iyo maanta fadhigeen uu ku saabsan yahay oo ugu muhiimsan oo ah qaabka aan isku waafajin karno hardanka ka dhaxeeya fakarka caqliga iyo ficilka qalbiga waxaan dhahnay walaalayaal labadaa xubnood waa laba xubnood oo muhiim ah oo ilaahi subxaanahu wa tacaala bini aadamka uu ku abuuray oona la-aanteedna ayna shaqayneyn marka dad badan baa waxay ka sheegtaan ay aada ooga sheegtaan inay isku qaban la'yihiin ama iswaafajin la'yihiin ama heshiis uusan ka dhaxayn wakhtiyada qaarkood oo weliba wakhtiyada macnihii qaarkood arrimaha xaaladaha qofka nolosha ay ku imaato xaalada ay kusoo darsaan caqligiisii iyo qalbigii ayna isqaadanayn oo iswaafaqaynin marka wuxuu ku leeyahay qalbigii waxbaan dareemayaa laakiin caqligii waxbuu kaluu ii sheegaya maalan tusaalaha ugu fiican aan keeni karna waxaa weeye qof baaba xaalad wuxuu ku jiraa maalan relationship maalan wiil iyo gabar baa hadda ishukaansanaya isguursanaya amaba isqababa waxaa laga yaabaa in uu qof ka mida labadooda uu kala kulmaayo shucuur marka uu dareemayo maalan inuusan ku xasilnoonayn qofkan uusan ku degnayn ama ma ahane inuu dareemayo shucuur uu qofkan ku degan yahay uu rabo marka waxaa dhacaysa caqligiina markaas waxbuu arkayaa waxbuu maqlayaa wixii uu qalbiga markaa uu aaminay uu haysto iyo wixii baa iswaafaqi waayaya markaasaa dhan waxaa dhacaya marka clash baa dhacaya maalan waxaa dhacda in badan gabar la yidhaahdo wiilka ha guursan loo diido isagoo lagu cilaynaya ciladaha macnihii maqbuulka oo islaamku ogolyahay dhaqanka ogolyahay oo maalan inuu diintiisi wax laga sheegay ama akhlaaqdiisi wax laga sheegay laakiin gabadhii ay leedahay qofkan wuxuu ii sheegay mar walba aan ka maqal xaggiis ama ka arko wax wanaagsan buu igula dhaqmaa wax wanaagsan buu ii arkaa oo markaas
waxaanay arkayso ama ay maqlayso uu ka awood bato wixii qalbiga markaa ku jira oo dhabta ahaa. mararka qaarkood waxaa dhacda cagsiga inuu qofkii wanaagsan yahay laakiin qofkiiba xumaan u arkaayo. marka see arrimahaasoo kale marka la iswaafajinaa ku imaata. sidoo kale waxaa arki kartaa qof baa meel ka shaqeeya, shaqo fiican buu haystaa, waxaa laga yaabaa inuu qalbigii uu ku xasiloon yahay oo uu meeshii u jecel yahay, laakiin caqligii iyo maaragtay waxyaalaha arkayo oo uu maqlayo ay isku qaadan laayihiin, oo marka ay noqonayso qofkii inuu shaqadii ku wadgarayo uu ka tago, ama sidoo kale shaqo ay tahay inuu ka tago uusan ka tageen. marka badanaa waxaa dhacda maaragtay arrimahaas waxaa ka dhacda dhibaatooyinaa ka dhacda. waxaa dhacday marka inay dad khubaro ah oo human psychology-ga iyo human sociology-ga yaqaan ama maaragtay neuroscientist ah oo maskaxdan qaabka u shaqeysa yaqaan inay baaritaan ku sameeyeen ay darseen dadka labay u kala qaadeen. dad waxay arkeen nolosha heer fiican ka gaaray oo successful ka noqday, oo maalan markay fiiriyeen qaabka ay noloshooda u maareeyeen, qaab aad u qurux badan oo qiimo badan oo iyaga qiimo gaarsiisay bay ka dhex arkeen. sidoo kale qoyskooda markay fiiriyeen qaabka ay u maamulaanna waxaa u soo baxday inay qoys fiican iyo caruur fiican iyo nolol fiican ay ku nool yihiin oo qiimo zaa'id uu qoyskooda u leeyahay. sidoo kale shirkado ay ka shaqeeyaan ay fiiriyeen, waxay arkeen shirkadahooda ay ka shaqeeyaan inay horumariyeen oo aad u hagaajiyeen oo meel fiican ay gaarsiiyeen. wabilcagsi waxay arkeen dad kale oo qayb kale ah oo highly intellectual ah oo highly educated ah, waxbay yaqaanaan, waana caqli badan yihiin, laakiin noloshii waa ka dhaceen, noloshoodii way maareen waayeen, qoyskii waa maareen waayeen, maaragtay maxaan ku idhaahdaa haddii boos maanta xag dowlad loo dhiibo waa maareen waayeen. marka arrintaas way fiiriyeen marka maxaa arrintaa keenay. oo hadda waxaa arkaysaa qof lagu leeyahay qofkan waa aqoon-yahan oo maskaxda u buuxdo, caqliga u buuxdo oo waayo araga, laakiin haddana brook ah oo cayr ah, caqli kasta uu leeyahay waa ka cayrsan yahay. waxaa laga yaabaa inuu gaariga uu wata gaas ku shuban la'yahay, ama telefoonkiis maaragtay uu bixin la'yahay, ama maaragtay biilashiisa caadiga ee carruurtiisa reerkiisa uu keeni la'yahay. marka laakiin lala hadlayo lala sheekeynaya waa nin qurux badan oo caqli badan oo aad la yaabayso. marka arrimaha marka la fiiriyey duruus bay ka soo saareen, leeyihin maxay arrintaa ku dhacday. marka waxay ogaadeen dadka noloshooda successful ka noqday inay ahaayeen dad human emotionska manage gareeya. human emotionskana waxaa la yiraahdaa waxay leeyihiin 4 basic ah oo angarka iyo saarka iyo fiirka iyo joy. waxaa la yiraahdaa macnaheedu waxaa la yiraahdaa angariga qofku markuu xanaaqa marka waxaa keena waxyaalaha ficilka, haddii aad wax lagu dhaho ama wax lagu dhufto waxaa laga yaabaa inuu qofku uu xanaaqo. marka xanaaqaas dad waxaa jira maareeya oo maaragtay fahansan sida loo maareeyo. sidoo kale saarneska maaragtay qofka haddii arrin wax uu jecel yahay uu waayo, wax agtiisa qiimo ku leh oo maaragtay qiimo zaa'ida ku leh hadduu waayo oo uu dhumiyo, maalan shaqo uu jeclaa buu dhumiyey, qofka aangari ma noqonaya laakiin saar buu noqonayaa, xoogaa maaragtay wuu calool xumaanayaa, wuu tiiraanyoonayaa, wuu murugoonayaa, ma garatay. ama sidoo kale qof uu jecel yahay baa ka dhintay oo maaragtay ka tegey, qofka markaas maaragtay waa qof markaa xoogaa murugaysan buu noqonayaa. wabilcagsi hadduu arko wax uu jecel yahay uu qiimeeyo oo agtiisa ma aragtay uu aad qiimo weyn kale hadduu helo, qofkii waa farxaya. marka joyga meeshii lagu leeyahay qofku wuu farxayaa, reyreen iyo farxad iyo maaragtay waxyaalo badan buu gelayaa. dad baa xoogaa kasii badaya, laakiin 4taasun bay kasii farcamayaan oo macnihii fiirkii bay cabsidii sii kala qaadayaan, macnihii joygii sii kala qaadayaan, intaas iyadoo bay ka farcantaa. marka dad waxay noqdeen arrintaas aad u maareeyey. waana sheegi doonaa ninka runtii book fiican ka qoray oo emotional intelligence ka qoray, waxaa la yidhahdaa Daniel Goleman. marka 4 qodob buu isagana u dejiyaa, dad baa 6 qodob ka dhigay, laakiin 4 qodob bay iyagana isugu imaan kartaa. marka aan soo koobo isugu soo aruurin kartaa. runtiina waxaad moodaa haddii caalamka aad arrintan uu maaragtay u isticmaalo, weliba hadda caalamka aad buu ugu faaftay macnihii 22 sano hadda ugu dambeysay. weliba hadda caalam alcarab haddaa sii fiirisidna aad bayba hadda aad ooga sheekeeyaan. annagana Soomaali ahaan arrinta aad bay noo haysataa. marka carabtu aad bay uga hadlaan haddaa fiirisid dhakaa'ul fikri iyo dhakaa'ul caatifi, hadda baarto oo raadiso aad bay uga hadlaan. waana arrin aan u baahannahay inaan aad ugu baraarugno. waxaa in badan arkaysaa
dad anaga naga mida oo highly intellectual ah oo highly educated ah oo rag hadda fil ah oo da'na ah laakiin emotionally maartay low ka ah oo EQ-gooda emotion-kooda uu maartay aad u hooseeyo oo maartay go'aamada ay qaadanayaan iyo maartay go'aamo jirjiricsan iyo maartay waxyaalo badan oo saas oo kale ay gaarayaan waxaan rabnaa insha Allah taala inaan wax yar aan dul marno dadka noloshan ku guuleystay oo aan dhahnay waxay awood u yeesheen inay iswaafajiyaan caqliga iyo qalbiga waxa ay ku guuleysteen waxa lagu soo koobaa ilaa 4 qodob afarta qodobna waxa keena Daniel Goleman marka 4 qodob waxa way oo dadkan aad u guuleystay oo successful ka gaaray ay ku gaareen waxay leeyihiin la yiraahdaa self awareness waa dad noloshooda ku baraarugsan noloshooda dad yaqaan waxa in badan laga yaabaa in aragno qof raadinaya aqoonsi oo in maartay qoyskiisa la aqoonsado ama qabiilkiisa la aqoonsado ama qarankiisa la aqoonsado adduunka meesha wax kaga noolaado laakiin aqoonsigu runtii waxay ka bilaabataa salaf qofka inuu naftiisa aqoonsado qiimaha noloshiisa uu aqoonsado uu i'tiraafo ayay ka bilaabataa marka dadkaas self awareness kale waxay ku guuleysteen shucuurtooda waxaan shaki ku jirin qof kasta oo bini aadana oo dhasha ilaa intuu ka dhimanayo noloshu maalinna inay ilinta ooga imaanayso farxad iyo rayrayn maalinna murugo ooga imaanayso marka waxay awood u leeyihiin emotionskooda aan sheegno 4 qaybooda inay manage gareeyaan hadoo kale mesela xanaaq oo kale haddii hadal xun lagu yiraahdo ama maartay ficil xun lagu sameeyo naftiisu xakameyn karaa qofkaas aan qofka guuleysta rasuulkeena waa isaga dhahay laysa shadiidu bis-suru'a inma ash-shadiid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab meel kalena u dardaarmay la taqdab saxaab u dardaarmay ninka halyeyga oo geesiga waa ninka noloshiisa hanan kara waa ninka noloshiisa control kara ninkaas way emotionkiisa ninka control kara kaas way waa qof noloshiisa intuu qiimeeyay garan kara meelaha ay ku fiican tahay iyo waxyaalaha uu mar walba marka uu sameeyo uu fahmi og yahay waxyaalaha uu firfircoon yahay buu garan karaa saa awgeed waqtigiisa kuma dhuminayo wuxuu san fahmayn ama u firfircoonayn noloshiisa u furfurnayn kuma dhuminayo macni kuma dhuminayo waa qofka qaybta koobaad qofkaas weeyaan waa qof naftiisa ku kalsoon qofka self awareness ka wali ku jirna self confidence uu leeyahay waxa uu fahmayo ama uu firfircoon yahay qabashadeeda uu ku kalsoon yahay hadduu rabo inuu meel gaaro waa ku kalsoon yahay wax walba ku imaada haddii laga xanaajiyo amaan la amaanayna meel u socday kama joojinayso xanaaq laga xanaajiyna meel uu maartay u socday kama joojinayso haddii saad laga dhigo oo wax uu jeclaa laga qaatana maartay hanti uu markaa lahaa maartay waxyaalaha saas oo kale agtiis ku weyn haddii laga qaatana murugada iyo tiiraanyadu mid hoos u dhigaysa ma aha wuxuu noqonayaa mid intuu fahmo dhahayo okay haddii maanta waxaa la iga qaatay maartay caqligayga iyo ragtinimadayda lagama qaadan caqligayga iyo dadnimadayda lagama qaadan from zero haddana kasoo bilaabi karaa waa qof kalsoonida noocaas oo kale ah leh weeyaan qaybta labaad waxa weeyaan waxa waa dad self management leh self management bay leeyihiin maareynta nolosha bay aad ugu fiican yihiin waa dad responsibility-ga qaata mas'uuliyadnimada ayay qaataan ma aha dad maartay mar walba excuse-ka iyo maartay blame-ka ciyaara waxa la yiraahdaa qofka mesela naftiisa aad u maareeya dhacdooyin hadii ku imaadaan hadda mesela waxa dhacda qof in shaqo laga buriyo qofkii marka shaqada laga buriyo qof baa waxa laga yaabaa inuu paralyze noqdoba meeshaas sariirba uu ka koro maartay oo stress iyo frustration waxyaalo badan ku dhacaan oo is yiraahdaba uu ciyaaro waxa la yiraahdaa blame game inuu yiraahdo hebel baa maartay mudnaa oo shaqada iga buriyay ama ma aan dhaqaalihii baa dhacay ama dawladii maanta dhan uu blame maartay eedeen u dhaqaaqo qof kale laakiin qofka naftiisa maareyn kara shaqada ama weyday Soomaha wuu tagayaa wuu fariisanayaa wuxuu qoranayaa resume uu qoranayaa maartay shaqooyin arjiye badan buu dirsanayaa wuu dhaqaaqayaa waxbuu sameeynayaa waxa dhacaysa marka inuu shaqadii shalay uu ka tagay mid ka fiican inuu helo oo albaab haduu ka xirmo xalay albaab kala furmaayo waxa laga yaabaa inuu meel kale uu gaaro oo maartay meeshii laga filay meel ka fiican uu gaaro waa dad marka saas oo kale waxay leeyihiin self control xil yiraahdo they can manage any situation ay galaan
noloshooda way manage gareyn karaan waxay kale aad ugu fiican yihiin dadkan ay manage gareyn wax la energy-ga dadka qaarkood kuma baraarugsana anaga dhan waxaan nahay energy socda ayaan nahay dad un hadalkoodu bilaash isaga bixin waqtigoodu bilaash u bixin waxa dhacda marka qaarkood dad macnaheedu xaalad barwaaqa isaga jira iska fiican laakiin energy-gooda uu macnaheedu uusan maartay uusan sareyn oo isdhiganaya markaas badanaa wax alaal wixii barwaaqo iyo wanaag ay ku jiraan ay dhaafaan dad kale waxa ku jira xaalad xun marka qaarkood gala laakiin xaaladii xumeed energy-gooda ay dareen gareyso ay hoos u dhigto ay isdhiibaan oo markaas ay waxba qaban waayaan markay dadkan waxay sameeyaan mar walba way maareeyaan oo way helaan xaalad barwaaqo haddii ku jiraan waxay xoogga saaraan in ilaahay fadligiisa iyagoo garanaya inay arrintan maintain gareeyaan oo sii horumariyaan oo mararka qaarkood waxaa arkaysaa qof baa maalan meel hoosu ka soo bilaabaya arrintiibuu u badanayso oo barakoobayso waxaa laga yaabaa inuu hadda shirkad intuu sameeyo shirkadda haddana shirkad kala sameeyo badanaana sifaadka waxaa iska lehlaya dadka entrepreneurska ah ayaa iska leh maalan hadda Hilton oo kale Hilton hoteelka u horeeyay wuxuu ka sameeyay New Mexico markuu hoteelka intuu gelina bangiyu galay arrimo kale soo maray isku ku soo feel garoobay badanaana dadka arrintan successful ka gaaray oo nolosha manage gareyn qof aan soo jabin oo aan soo khasaarin oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo ka badan ba aan soo jabin ma jiro qof meel sare iska gaaray hadda aragtid product diyaar ah oo maartay soo baxda arkaysay qof dhibaato badan soo maray waay marka hadda مثلا Hilton oo kale wuxuu sameeyay markii hoteelka hore u shaqeeyay haddana wuxuu guuraa liiri wuxuu u guuray taxis oo u dhaweed markaas taxis buu mid ka furay haddana taxis markuu state-ka uu qabsaday oo ku balaartay buu wuxuu aaday Southern-ka macnaheedu ama West-ga Far West-gu aaday oo wuxuu aaday California West-ga markuu soo qabsaday haddana East-ga New York uu aaday adigu calaa taxaal Mareykan markuu qabsaday oo Caribbean-ka uu aaday oo haddana maaragtay Europe aaday Africa Middle East hadda waxa arkaysaa Hilton Hilton meel walba adduunka tagtaa aad ka arkaysaa waxa kamid ah sidoo kale Sam Wilton Walmart markuu hal dukaan qofku uu sameeyo mid labaad mid saad marka dadka barwaaqada marka saas ku jiraan waa dad si maintain gareyn kara oo si socon kara hadday rafaad iyo dhibaato ku soo dhacdana ay wax u shaqeyn waayaan dad isdhiiba ma aha marka waa dad energy-gooda mar walba maareeya oo garan kara meesha ugu fiican oo ugu qiimo badan ay gelin karaan marka taasna waa qayb midda wali waxa ku dhex jirnaa self management-ga qodobka kale ee aad ugu fiican yihiin dadkan maartay horumar waxa weeyaan waa dad self motivation leh waa dad iyaga isdhiira geliya anaga badan waxa raadinaa qof hero ah haliyay intuu noo soo kaco na dhiira geliya na dhaqaajiyo laakiin kuwaan hero within iyaga gees ku dhex jira isaga way haliyay naftiisa hadduu xitaa mararka qaarkood uu kaligiis noqdo uu cidlo noqdo isaga isdhiira gelinaya isaga ma aragtay isku gabeeya ama isku heesaya ama iswaaninaya ama isla hadlaya oo ma aragtay mararka qaarkood dad badan oo hadda aragtay adduunka meel ka gaaray marka kaaga sheekaya wuxuu ku leeyahay mararka qaarkood inaan lonely noqoto bay ku fiican tahay markaas taaba inta fakar fiican aad gasho deep thinking critical thinking aad gasho ba waxa soo saari kartaa waxyaalo ay dadka kale hadday kula joogaan ka mashquulin lahaayeen ama tushi kugu furi lahaayeen kaligaaba is helaya meesha ay ka qaataan waa qofka inuu ma aragtay mararka qaar khalaabo uu sameeyo oo ma aragtay kaligiis intuu meel cuzla uu sameeyo oo baxo meditation uu sameeyo oo ma aragtay kaligiis ma aragtay uu nafta helo isaga marka waa dad iyaga intentional ah waa dad purposeless ula jeed waa purpose driven people meel bay u socdaan they know where they heading marka waxay sameynayaan caqabado walo ku imaata iyaga ayaa ma aragtay isdhiira gelinaya ma aragtay halii isku ah qodobka saddexaad oo dadka hormaray oo nolosha ma aragtay meel fiican ka gaaray ay leeyihiin waxa weeyaan waa dad social awareness leh waa dad bulshada ay ku dhex nool yihiin ku baraarugsan oo aqoon buuxda u leh oo xaalad walba ay bulshada ku sugan tahay ama xaalad barwaaqo iyo reereyn iyo nabadgelyo wanaag ha ku sugnaadaan ama xaalad colaad iyo dagaal iyo maaragtay abaar iyo dhibaataba ha ku sugnaadaan waa dadka ku dhex jira oo dhib iyo dheefba la wadaaga oo la caadifoonaya oo maaragtay shucuurta dadka xaaladda jirta la wadaagaya waa dad iyaguna la soo dhaxgali karo oo furfuran oo loo imaan karo oo dhib iyo dheef wixii jirtaba lala wadaagi karo oo la sheekaysan karo weeyaan
taana waxay waafaqsan tahay xadiiska uu noo sheegay suubanaheena sallallahu alayhi wasallam oo uu leeyahay almu'minu ya'lafu wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'lafu walaa yu'laf qofka mu'minka waa la qof la soo dumo isagana dadku ay soo dumaan khayr iyo wanaagna ma laha qof dadkana aan dumin isagana loo soo dumin aw kama qaala sallallahu alayhi wasallam marka waa dad waxaan dhahnay dadka caadifada la wadaaga waa dad mar walba social oriented ah waa dad mar walba jecel habsamida iyo hanaanka iyo horumarka dadka jecel niyadda ku haya raba inay dadku hagaagaan hormaraan dadka oo hagaaga buu ogyahay inay tiisa khaaska ah ay hirgalayso dadka haddaad connected ku tahay oo dadka wax la wadaagi karto oo dhibi dheefba la wadaagi karto oo aad maaragtay dadka aad ku xiran tahay dadka xaaladaada qayb bay ka noqonaysaa dadkaas oo ku wanaagsanaadana waa wanaagsanaanaysaa dadkaada oo kaa halaabana waa halaabaysaa horumarna ma gaaraysid waxyaalaha mathalka aan kusoo qaadan ugu muhiimsan waxaa ka mid ah xagga social awareness-ka ka soo qaad qofka qoyskiisa waxaa laga yaabaa rag badan weliba anaga raggayga Soomaaliyeed ah si gaar ahaaneed waxaa laga yaabaa qofka inuusan xaaskiisaba fully aware uusan u ahayn oo emotional ahaanna uusan connected la ahayn uusan la xirnayn waxaa in badan dhacda in family problem ku yimaado مثلا dhibaato ay ku dhacdo dhibaatada haddii ku dhacdo hooyadu badan iyada guriga joogta haweenkuna badan xagga emotionka raggu waa kaga sareeyaan ilaahay baana ugu badiyaad moodaa waa kaga horeeyaan marka gabadha waxyaalo badan bay arkaysaa dumarkan waxa la yiraahdaa waa dad detail oriented na ah multitaskers na ah hooyadu waxay awood u leedahay inay cunto kariso cunuga dheebal ka bedelayso telefoon ay ku hadlayso ninka ragga waxa ma sameyn karo anagu big picture mar walba qaadana rag ahaan marka waxa laga yaabaa xaaskii inay wax detail aragtay مثلا ama waxyaalo qaar kood detail aan xota hoosaba ahayn waxyaalo aafiyeso iska cad inay aragtaba مثلا dhaqaalihi problem biilasha la bixin lahayaa ninkii isagana mas'uulkii reerka ah haddii ku imaato iyadoo xanaaqsan inuu xanaaqaaba uusan la caadifoon uusan la xanaaqan gabadhii uusan problem ba u aragba sidoo kale waxa dhacda in ay arrimo kale oo iyada aan xitaa financial and internal iyada ay ku imaan karto emotionally uusan connected ku ahayn waxa hadda ka hor arrin murtile aan ka helay nin odaya oo fil ah oo aad u weyn la wareystay waxa marka ay joogaan ay isqabaan isaga xaaskiisa 60 sano iyagii baa dhowr iyo 90 jir ah marka wadankan hadda galbeedka aan joogno qof dad isqaba hadii la arka 60 sano waa wax weyn waay wadankan aad buu furitaankiisu u badan yahay qoysaska burburkoodan aad ugu badan yahay marka waa la wareystay waxa liirniyo maxaa arintan ku soo gaarteen iyaga kali xitaa ma dib baa loo sii raacay ilmahay dhaleen iyo dadka sii dhaleen wanaagsan oo isaystana waa la arkay marka saa la wareystay waxa liiri maxaa arintan maartay ku soo gaarteen guusha inta leeg wuxuu yiri markaan gurigeyga imaado haddaan arka xaaskayga xanaaqsan waxaan fiiriyaa waxa xaaskayga ka xanaajiyay ayaan fiiriyaa مثلا hadduu ahaa dhaqaale waxaan ataagereeyaa oo aan weeraraa dhaqaalihii markaan dhibtiisa aan xaliyo xaaskeyga way xasishaa sidii aan ku aqaanay bay ku soo noqotaa ama ma ahane waqtigii bay maartay ka xanaaqday arrin in badan maqanahay oo kale oo aan maartay aan mashquulsanahay waxaan arrange gareeynaa vacation ba aadno meel fog aan geeyo ama waqti badan ba guriga ku bixiyo adigu markaas amaba haddaan arkay inay wax ay psychological iyada iska dhaadhicisay oo marka wax iyada maartay isbedel ku imaad ay yihiin wixii baan la wadaagaa wixii baan marka hadal ahaan aan maartay aan la wadaagaa oo aan maartay emotional connect ku noqdaa oo aan ku dajiyaa arrinta marka ka wada hadalna wixii way xalisataa annaga waxaan arkaynaa rag arrinta aan sameeynin oo waxa dhacaysa inay reerkii intuu saa connect ku noqon waayo gabadhii kala tagaan oo haddana uu problemka iyada intuu u qaato haddana reer kala aado oo haddana reerkii markuu aado haddana sidoo kale noqoto burbur oo haddana uu burburo oo markaas uu gaaro uu yiraahdo wax haweena oo la guursado maanta ma jirto wabilcagsi waxa laga heli karaa dumarka laftigoodana waxa laga yaabaa inay gabar intay ninsaas kale guursato ay ninkii emotionally connect ku noqon weydo psychological needkiisa ay fahmi weydo ama ma aragtay emotional needkiisa ay fahmi weydo ee la sheekaysan weydo hadalka la wada hawsha la wada weydo ay ninkii kala tagaan mid kale haddana markay guursato sidoo kale mid kale sidoo kale ee hadhow markaa dhahdo silic ku nool soddon guursadaa dhaanta marka arrintaasna ay hadhow noqoto arrin problem weligeed aan ka bixin sidoo kale waxaan dhihi karnaa qof xagga social connect dadka markuu dadka la shaqeeyo shaqo aadaya shaqadii dadka uu la shaqeynayay wuu la qabsan waayaya
marka waxay noqonaysaa maalan in shaqadii iyo dadku fahmi waayo oo shaqadii laga soo buriyo markii shaqadii laga soo buriyo uu ka soo tago waxaa marka dhacaysa inuu blame game ciyaaro uu yiraahdo ninkaasa shaqada inacab ama ha yiraahdo dhinac kaar maartay race ha isticmaalo mid ha isticmaalo ama kaar maartay tribe iyo qabiil ha isticmaalo ama wax wal any excuse uu heli karo ama blame uu qof ku blame garay uu raadinaya markaas waxa dhacaysa inuu maalinba shaqo uu ku jiro waligiis uu meel gaarin dadka kale laakiin waxay sameynayaan dadkan markay arintan arkaan shaqadii laga buriyayba shaqadii hadda mesela laga buriyay wuu tagayaa wuu fariisanayaa wuu fakirayaa wuxuu sameynayaa inuu maartay arjiyo uu qorto inuu rasmi uu diyaarsado qurux badan uu aad ooga shaqeeyo uu arjigi maartay shaqooyin iyo maartay meelo badan u kala dirsado oo markaas uu shaqadii uu hayayba mid ka fiican uu gaaro haddii lacag la dhacdo inuu shaqada ka tago uu helo ama waxaaba dhacday dadka qaarkood inta shaqo laga fayr gareeyay eeba business iyaga ay leeyihiin intay bilaabeen ay ku barwaaqoobeen ay macnaheedu fayr gareyntii la fayr gareeyaba ay ku farxaan oo aad u jeclaysteen marka waxaan leenahay dadka ee hormaray waa dad mentality-ga leh waxaan u gudbaynaa qodobka maartay afraad ay leeyihiin dadkaas iyaga ah dadka hormar qodobka afraad leeyahay waxa la waa dad qodobkan buu ku dhow yahay waa dad waxa la yiraahdaa social skills leh qofka hadduu isu hormaro uu meel gaaro waxay yeeshaan dadkan waxa la yiraahdo waxay noqdaan dad leadership skills leh waxay ku soo baxaan dadka influence gareeya in a positive way si wanaagsan bay maartay u saameeyaan dadka maartay hagaan dadka hogaamiyaan dadka developmentigooda ka shaqeeyaan si dadka u horumarin lahaayeen ayay ka shaqeeyaan saas ogeeda iyagana markaas wanaagii iyo horumarkii ay gaareen uu 10 jibaarma uu 100 jibaarma oo ay noqotaan waxaan xadidnayn horumarku uu gaari karo ilaa marka intaas ummada wax u qabato oo intaas ummada ay kula shaqeeyaan wax kula qabtaan waxa gaaraysa adigan inaad horumarkaada u sii bato waxa badanaa tusaale fiican loo soo qaato wadankan waxaa jirta haweeney wadankan caanka Oprah dad badan yaqaan international la yaqaan Oprah marka waxay lahayd talk show taariikh badan ka soo martay oo dhibaatooyin badan ka soo martaa jirta laakiin markii dambe oo hagaagtay waxay noqotay qof qalbi furan oo dadka dhan u qalbi furan oo dad aqoon-yahaniin ah oo intellectualist ah oo highly educated ah oo fiilal badan ee markaa ka hadlaysay u keeni jirtay heer waxay gaartay dadka qaarkood dhahdo niyahow waxaan aan sameeyo kala sameyn kartaa show aan ku sameeyno hadda mesela dad badan oo successful ayaa soo saartay oo hadda Dr. Phil oo kale Dr. Oz oo kale gabadh leeyahay hadda cuntada kariso Rachel oo kale iyada soo saartay markay dad saas oo kale ah badan kuwa kale badan ba soo saartay markay dadkan saas oo kale soo saartay iyadana waxay noqotay inay magaceedu u sii bato maalkeedu u sii bato maartay masabkeedu u sii weynaado ay meel gaarto annagu waxaan nugu adag in aaban iska daayay aan qof aan warbooska aan fadhiyo kale soo fariisay ta isaga uu sameystanayo inaan ku hor istaagno oo aan u diidno aan u ogolayn oo maartay xasnimada iyo jealousy uu iska aad u badan cudur xun oo maartay nagu habsaday ay yihiin marka dadkaasi waa dad marka wax u guuraan macnaheedu social skills waxay helaan inay ummadda horumariyaan motivate gareeyaan sidoo kale waxay sameeyaan ay ma aad uga hadlaan ay xaliyaan oo ay maareeyaan waxyaalaha conflictiga bini'aadamka soo gala khilaafaadka soo gala si niyad samiya oo qalbi samiya oo ay labadan qof ama labadan shirkadood ama labadan maartay qabiilo is haysta bay soo dhaxgalaan si ilaahay ku ogay u soo dhaxgalaan waana hagaajiyaan horumarna waa ka gaaraan marka walaalayaal haddaan sheegnay dhibaatooyin ku dhacda dadka maartay aqliga badan anagana waqtigan aan joogno dhibaatooyinka na gaaray oo na haysta oo ilaa hadda markaa qoysaskeena fiirisa aan la wada burbursannahay oo qarankii dhameed aan la la'nahay waxaa macnaheedu aad in badan hor ordaya dad fil ah oo waaweyn haddana shahaadooyin badan oo waaweyn wata ama loo sameeyay ama soo kasbadayba intellectual high waaye waa qof maartay aad u sareyso laakiin emotional intelligence-giisa very low ah EQ-giisa very low ah he cannot connect with the people dad badan oo waxa arkaysaa mararka qaarkood inay dadka la caadifoodaan iska daayaba caynayaba oo dhahay Soomaalidan waxba ma yaqaanaan Soomaalida hadal baa ka soo haray waa oral society waxba ma yaqaanaan waxba ma gartaan waa badow waa reebaadiyaal hadda waxay ka imaadeen duur iyo meelaha la garan dadkiisi wuu caynayaaba waxa ka daran inuu maamulo madax u noqdo uu raba haye inuu qiimo ku gaaro raba marka dhibaatooyinkaas waxaan arkaynaa
dadkeena marka laba isla balance gareyno oo aan raadino oo xitaa dadka iyaga intellectualka aqoon-yahaniinta qof walba ilaahay wuxuu siiyey ay ka hadlaan qiimaha ay leedahay in labadan la isku balance gareeyo IQ-deena iyo EQ-deena la isku balance gareeyo oo qofkiina cilmi badanna la baro emotionalina qof leh arrimaha soo sheegna noqdo oo qof self awareness-kiisa haa yahay macnihii social awareness haa yahay macnihii self management-kiisa uu haa yahay macnihii social skills-ka bini'aadamkan uu haa u yahay inay arrintaas ay muhiim noqoto meel fiican aan ku gaari karnaa waxaan rabaa marka inaan wax yar aan kusoo koobo qaybta u dambeysa kusoo gunaanidaya oo ah qaabkaan u cayilin karna caqligeena ciwaankeena wuxuu ahaa cayil caqligaada caatana ka celi waad fahanta hadda wabididdihaa tatamayazu al-ashyaa waxaa la sheeba shayga lidka uu ku yahay wuu caddeeyaa qofka hadduu mar walba uu malab iska cabo weligiis dacar uusan dhadhamin dacarta waxay tahay ma garan karo sidoo kale qofka hadduu caafimaad iska qabo oo mar walba maaragtay caafimaadka ku jiro weligiis cudur hadduusan ku dhicin caafimaadka qiimaha uu leeyahay ma garan karo aragtidaan aan haysano iyo maqalkan wax walba aan ku kasbanno qofka ila awaayo ma garan karo marka ay nimcadu sushu garan karaa marka haddii aan intaa ku baraarugsanaano oo aan caqligan aan ku baraarugsanaano aan ognahay qaabka u shaqeeyo qaabka isugu balance gareyn karna aan fahmi karno oo aan dhahno emotionkeena inaan manage gareyno waaye aan ku sheegnay waxaan u baahanahay marka seebaan caqligay ku kobcin karnaa oo ku cayilin karnaa aanan maaragtay caqli caataa wax mataran uusan u noqon taasna hadda maaragtay aan gunaanada insha allahu tacaala waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan kusoo gunaanado ciwaanka iyagu wuxuu ahaa cayili caqligaada caatana ka celi waxaan ka soo hadalnay saan hore u sheegnayba qiimaha uu caqliga uu leeyahay uu noo leeyahay qaabku u shaqeeyo intuu u qaybsamo waxaan soo sheegnay dadka caqligooda uu sarreeyo macna sifaadka ay leeyihiin iyo qaabka u shaqeeyaan dadka isku balance gareeya IQ-da iyo EQ-dan ka hadalnay iyo say u soo maareeyeen marka su-aal baa imaan karta seen ku cayilin karaa caqligayga ama ku kobcin karaa dhowr qodob marka aan soo qaadanayna insha Allah tacaala qodobka koobaad waxaa muhiim ah inuu qofka uu furfuro maskaxdiisa aragtidiisa aragiisa iyo maqalkiisa inuu furo marka hore ilaan waxaan cilmiga dhan wuxuu nagu soo garaa caqligu la shaqeeya aragtida iyo maaragtay iyo maqalka labadaaba waa inaad furtaa sidoo kale waxay dhahan waa inaad attention aad bixisaa pay attention waxaa u bixinaysaa waxyaalaha agagaarkaada dhan maraaya indhahaada fur dhagahaada fur meel walba aad tagto murti baa jirta wa fi kulli shayin aaya tadullu calaa annahu waaxidu ninka gabadha wuxuu yidhaa meel walba aad marto calaamad waxaa arkaysaa ilaah inuu waaxid yahay ku tusinaysa waxaan ugu soo qaadanaynaa wax walba adduunka aad qof walba aad la kulanto meel walba aad tagto haddaad indhahaad ay furan yihiin caafimaad qabaan attention aad bixiso waxaad helaysaa inaad murtiyo aad hesho taas waa qodob muhiim waay qalbiga fur oo dhagahaada fur maskaxdaada fur attentionna bixi meel walba aad tegayso qof baraarugsan oo soo jeeda noqo yeesan macnihii aad maaragtay ahaan qof qafla iska ah badanaa waxaa la yidhaahdaa hatta haddaad gaari a wado oo safar a ku jirtaan qofka gaariga wada iyo qofka lagu wado badanaa waxaa mar walba wax soo xasuusanaya qofka gaariga wado maxaa dhacay qofka attention buu bixinayaa qofka laakiin lagu wado waa iska sheekeena waa iska maqan yahay hadhow haddii ila wadada ku soo celiyo inuu wadada garan waaya laga yaabaa laakiin marka kale uu ku soo celiyo si fiican u fahmo marka dhagahaada ha furnaadaan indhahaaduna ha furnaadaan qodobka labaad oon caqligeena ku cayilin karno oo aan ku kobcin karno waxa weeyaan akhrin badan iyo qoraal badan waana labada oo qur'aankeenna iyo diinteenna ma dhihi karnaba astaan u ah calaamad u ah waxyaalaha rasuulkeena xujooyinka lagu garta ay tahay aayaadkii u soo horreeyeyna lagu sheegay iqra bismi rabbika alladii khalaq rasuulka markii la soo saaray ilaahay yidhi huwa alladii bacatha fi lummiyiina rasuulan yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma waa astaantii rasuulka u lahaa inay dad wax akhriya waxna qoraan kitaabada waa waxa diintan ay leedahay waa wax dhaqankan ay leeyahay waa waxa anaga nala ka waayay waxyaalaha xitaa dadka iyaga wax bartay aqoon-yahaniinta nagu caayaan baa waxay noqotay dad oraal inaan iska nahay iska hadalna oo maaragtay waxnana aan qorin waxnana aan akhrin dad ummiyiin ahoo hooyooyinkooda loo nisbeeyey sidii hooyooyinka ku dhaleen oo kale iska ah baa nalaku caayaa nalaku dacayadeeya laakiin waxaan leenahay waxaan ku xoroobi karno caqligaynu ku kobcin karna waxa weeyaan inaan wax akhrino waana dhaqan diinteena na siistay waa dhaqan dad ma aha maaragtay wanaagsan oo ummadeenna iyo ummaddan islaamka xadaarada waqtiga lahaayeen waxyaalahay sameeyeen waaye haddaad fiiriso
makaatibta muslimiinta ilaa beriyadood waa arkaysa xadaarada jirta qoraalada la qoro Soomaalideena waxaan dhahnaa hadal badan haan ma buuxsho waxaan kaloo dhahnaa wixii la qoraa qaruumaha reed muxuu hadal qiimo leeyahay waxa marka aad qorto waxna akhriso qiimo qofku yeelanaya wixii qorana qiimo leeyihiin marka qodob labaad oo aad caqligeena ku cayilin karno oo aan ku weyneyn karno weeyaan qaybta saddexaad oo caqligeena ku cayilin karno waxa weeyaan hadalka qofku inuu hadlo ama self talk isaga hasama isla hadlo daawa ku jirta ma xumo qofku inuu isla sheekaysto hadlo anaga qof isla hadla hadaan inuu waaleeyahay u maleyn laakiin isla hadalka nafta ma xumo self talk waa wax maartay jira xitaa waxa la yiraahdaa self taught qofku inuu isbaro wax waa wax jirta oo isaga kaligiis wax akhristo oo kaligiis wax qoro oo kaligiis isla hadlo oo waa skills qofka within ka bilowdo weeyaan aadna u muhiima inuu qofka isla hadlo waxa kale oo muhiima oo caqligan ku cayilin karnaa waxa weeyaan taa waxaan ku dareyntaa ka tagin hadalka marka hadlaysid dadka aad la hadlayso ha noqdaan dad aad soo catay qof walba ha iskala hadlin oo maartay waqtigaada ha ku dhimin cimrigaada ha ku dhimin dadka caqliga badan oo maartay waaye araga ah oo waliba wixii badan aad jecesha inaad barato ama aad noqoto berri dadka yaqaano kale la hadal la sheekayso qaybtan marka afraadan aan maartay iyadana qayb weyn ka ah oo iyada arrintan la xiriirto ah dhageysiga inuu qofka aad u dhageysto waliba aayaadka daan ka soo hadlaynay badanaa waxay isku xiraan oo wax ku baranaa waa samaca ka horeeya caqliga quraankeena in badan samcu ka hadla xitaa jinka wuxuu ku leeyahay inna sami'na quraanan آيات هذا سوء أخرنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار قال هذا مركز نار تقران وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل قرآن كدت كلها لقوم يسمعون وفهم كرا أو فهم أو مارت عقلي كبعين كرا وعقلي وكرن قن كرا وقفك وحد ودجست سوى كلا واحد دهان إلهينا وحنا كسي هالأف وحنا كسي لبدجود مركا دبل دقيسو انت aad hadasho laba jibaarkeed ama saddex jibaarkeed ama afar jibaarkeed daqayso dulqaadkeedana yeero wax badan baa ku baxaya oo maartay caqligayaga iyo garashada iyo garaadkayga kor u qaadaysa waa dhageysiga weeyaan inta markaa sameeyso markaan aanay pay attention aan dhahnay oo qodob koobaad ah oo aan dhahnay indhahada fur oo dhagahada fur aan dhahnay akhrista iyo qoraalka qodob aan ka dhignay hadalka aan qodob aan ka dhignay dhageysiga aan qodob aan ka dhignay marka afarta aan soo sheegnay qodobka shanaad waa qodobka siil gareynaya arintan xiraaya oo maartay la'aantiisna inta dhan aan sheegnay waxba aan qonin oo ah action ficil wixii aad dhageysatay oo aad maartay ka hadashay oo aad qortay oo aad akhrisay dhaxgalkii ummadda dhaxgashay aad la sheekaysatay wixii oo dhan haddaadan ficil u bedelin qalbigaada waxaas kuma galayaan kuma saxmayaan waxaan sameynta ay ku noqon karaan haddii aad ficilka waa waxyaalaha waa ka badan yahay waxaa la yiraahdaana action is louder than maxaa la word maanta waa hadli kartaa waa sheekayn kartaa waxba qoran kartaa laakiin hadaad hirgelin oo aad ficil u sameeyno wixii ma intifaaci kartid meel kuma gaarsiin karaan intaas aan leeyahay shanta qodob aan leeyahay waa shan qodob oo aan ku cayini karna caqligayga la rabo qofku inuu ku baraarugsanaado oo mar walbana arintan hadda aan sheegayno wax uu qofka ka dalaca ma aha maalinta aad dhalatay ilaa maalinta aad dhimanayso dhulkan laga dhaqaajinayo waad ku jiraysaa akhris baa ku jiraysaa qoris baa ku jiraysaa maartay inaad dad la hadlaysaa ku jiraysaa inaad wax samaynaysaa ku jiraysaa weligaa maartay isma dhiibaysa insha Allah tacaala intuu ilaahay ka yiraahdo inta aan walaalayaalow barnaamijkan iyo mid lamid ah aan hawada dib ugu kulmi doono waa walaalkan Cabdinuur Aadan Xayir oo idinkaga tagay salaanta islaamka wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh